dadka qaar si kala laga yaabay inuu fahmaan wuxuu ku leeyahay kitaabka quraanka wax kasta uu ku yaalaa waxa kale ee la sii raadin muxuu yahay ilaahay soo ma dhin ma faradna fil kitaabi min shay wa sax ma faradna fil kitaabi min shay laakiin waxa ogaataa isla kitaabka sidaas ah waxyaabo uu sheegina jirto ee way sal isu waafaqin aayadan iyo waxa ku jira wuxuuna kitaabku sheegin inuuna wax kitaabku uu sheegin ay jiraan waxa ku daliil meel kale kama keenayno nabiga sallallahu alayhi wasallam muaad ibn jabal yuu yaman u diray markaas wuxuu ku yiri maxaad ku xukumaysaa dadka markaas wuxuu yiri fa bi kitaabillahi kitaabki ilaahay baan ku xukumaaya markaas waxa lagu yiri fa in lam tajid hadaadan ka helin ka waran soo wax laga waayay kara ma rasuulka wuxuu leeyahay muaadow hadaad arintan aad sheegayso fa in lam tajid kitaabka hadaad ka weydo wuxuu yiri fa bi sunnati rasuulillah rasuulka sunnadiisa hadana ka raadinaya markaas hadana waxa lagu yiri fa in lam tajid sunnadiina waad ka weyday marka fiir waxa jira wax laga weynaayo kitaabkii laga weynaayo oo sunnadii laga weynaayo see la yeelaa marka oo hadda aan yeelay bal tusaale ahaan keen inaga Soomaaliyeed dhaha haye qofka madaxweynaha inoo noqonaya inta sano ee uu madaxweynenimadka loo imanaayo ee uu madaxweyne ahaanayo waa meeqa sano waa 5 sano bal aayad quraana ka soo saar jamhuuriyadda Soomaal ra'iisuha muddatu 5 sanawaat aayad kuma jirto xadiisna kuma jiro maxaa la sameeyay marka waxa la sameeynayaa muxuu yiri muaad ibn jabal fa in lam tajid kadib muxuu yiri ajtahidu wala aalu wuxuu yiri waan dadaalaya mana ka gaabinaa inaan dadaalo oo wax umada anfacaya oo kitaabkii iyo sunnadiina aan khilaafsanayn inaan keeno marka waa la keeni karaa yaani waxa la fiirinayaa kitaabkii iyo sunnadii ma khilaafsan yahay ayaa la fiirinayaa aayadan oo ma farna fil kitaab min shay mufassiriinta qaar waxay ku fasireen si uu isaga hor imaanin diintu isaga hor imaanin waxay dhan waa looxul mahfuudka wax la sheegayo ma farna fil kitaab min shay inta la sheegayaba waa looxul mahfuudka wax kasta ku yaalaan laakiin kitaabkan quraanka wax badan oo ku olin ayaa jirta midaa wuxuu u fahmay ogtahay in wax walba laga helayo la isku mar dhiibay ogtahay wax aan yaani aadan helaynin mid ingiriisi ah waxa limid oo saas oo aaminsano ma farna fil kitaab min shay waxba loogama tagin dhahay يا إساركين حنا كتاب كان واحد كسو شيء مركز سوي الكتاب كل واحد اسمه شيء ها مقعي كسو صار بكتاب كينا مركز سوي مقعة هذيك بحول كوك أيال اللي ده وترى كوك اللي بيشوق يسوي وترى كوك مش شيء اسمه مقعي نيجي إنجليزي أو ماشي كسو صار وترى كوك مركز ماشى وحال ربع يعني إن الفهموا ما فرنا في الكتاب شيء وحلو جدا والله المحفوظ كواحد سو شيء لكن كتاب كان القرآن فإن لم تجد أياك جرت تاسوامت مدك لو حيت هاي كتابنا إنه قرآن الفقه جاء سفينة كسب بلو شيخ أيا قري فصل هذا كم فصل واي وإنه قري نواقض الوضوء فرائض الوضوء مبطلات الصلاة وقري منهاجك شيخ قري وشرحي وواحد قري وهذا لكن حلقة سو استنباطي أو لقى سو بحيي كتابك وحنا أقول يا مركا وحي عن حلال يا حرام أهين وهذا مثلا خمرض وحرام ربض وحرام زند وحرام حديد السورة على سمعنا أنت لا ده هذا أدون كمان أنت قالها هي ستة بنجيد الربا يكون شقيانة عن ربض حلالينه إنك الصومال عندنا دقالها سوء كبعه قال هذا بنجيد إذا ربض استعمال أيان لا شقيسنا ساس دراد ربض ويبنانت هذه قارد أهان وساقو سو قرآن لقى ما يلاي محا يلاي تحليل تحريم كإلهي بأسكاله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب لكن كورا ما دام دجسنا قانون كلا إلى هذا قانون توظيف العمل شقادة ضدك سير الله سيو حيالي مثلا وزارة ماشي عنا يتعالى شقالين يقالتين ربطا هدي عن قانون الله سميني شقالها لغو قاطو وحا إيمان إيسا قفكي معاملة لغا ديقو وزارة داس انت المعذير كأيهين لأنه كقرو شقالات هاي أدنا شقالات هاي أدنا شقالات كل ولا شقالة كديقو ورسلان محاي تاي محاي أهان الله هيدا وزير كمحا 4.5 سؤال ما قيبسن وزارة أنك عسكري ورسلان اسمعها وزارة ومدى يكد حيسا عن شور دادك لغا قاضي أي وزارة وكو عدان ساس دراد دادك شقالة لغا سينايون قانون لإسكوغي هاي وين لو سميايو قانون كاس دادك شقاسين توضع وان سمينينا
وحاجر قانون ليراد مثلا قانون المرور ودوين كسير الله مرا هذا مثلا جد كان هرتين مرا أفجوي هذا بابورتو مركا أي مرايان لبا دناعي كلام مران كي أفجوي وصعد دنك ميدكتو مرا كأفجوي كي معضينا دنك بدحدو مرا وإسقرب صعدان مركا هدي مثلا كو أفجوي وصعد أنتو كبحوا دناع ميدكتاه أو دناع كلا مرو تذكرون محيدها هذا واس كلا قبصنا واس كمرا موجي لكن محل له بابور كاس شرع الدراي وضد كمرايا أو سيد كيسي أما دنعيسي معه هدي ترافق ضاي قبطه محيدها مخالف وكجرا وحو خلافي قانونكي أو وضد لغو مري لها جناح لغا قاضايا هدا ترى قف كان بقول كن أشهر الصومالي لغا قاضي محل لغا قاضي آية دال لغا قاضي هدا ترى آية جناح شيء جيسة وكل هاي بقول كن لغا قاضي قف كي جد كأفجوي أسقو دنعي كلا كمرايا ده مهليسد حديثنا مهليسد لكن هدان صار لون نظامين شلال كبابورتا يسكون عيا بدنايا ساس درادت وحي معناها dadku ay waxooda ku nidaamsanayaan nabigu wuxuu yiri antum a'lamu bi umuri dunyakum adduunyada nisaa u dhaqanaysan idinka taqaanaan laakiin waxaan la ogolayn wax shariicada khilaafsan hadda inaga Soomaaliya hadaan nahay burburkii kadib wax un dawlad la isku soo yara aadiyo waxa laga soo bilaabaa 2000 shirki carta waxa qaban qaabi oo ogtiin Soomaalida ayaama taariikhda maxay ku fiicneen ma ogi waxa qaban qaabi dad bulsho rayid ah oo culimo ay hogaaminayaan oo hogaami kooxeedyadii xilligaas jiray qayb kama ayna ahayn waxa isku aadiyay odayaashii dhaqanka ganacsatadii culimadii waa shirki carta ogtiin soo ku dhacay markii la qoraayay dastuurka waxa lagu qoray oo ilaa hadaba ku taala ay qaanuun يخالف الشريعة الإسلامية يعتبر باطلا قضب كستا أو شريعة الإسلام ككهر إيمانايا وحكم الجيران يا مركب صومالي شريعة وحنا كل حكم كره كوقف فاسق سنديلا كانوا بولشة أيوجي هاي إن الشريعة أوجشها هذه سؤال لو يدير هذا وطن كم حد كل حكم يسا هذا هو فاسق هذا لوجي هاي أموريانا محودها يا شريعة ولا ما تابتان شريعة لوج حكمها ماشي أسفير ولا سوق جارسي ومسؤول سوق جارسي إلا الفلوية لا دمن دتك فكر أهان دتك كلهم وحلاقة داعي شريعة الإسلام كمسلمان نهاي وحكله أو أنفعها مجرى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وعلى يسود جي الراعة وعلى يسود جي وحي سلاس لوشة أو حلال يا حرام يا كسب سما سلاس وحي النظامين يا كسب سن حاجة لما رأي بيرها سيلا قطايو جوجا سيء ديارها لو كلا هجايو بابور تسيكو كلا السعودانيو سيء الشقة مركي تتكلا الصين هاي لو كلا نظاميايو أنت أسولينه أقوليه أنت أسمع كان كسو قدبنو أو الدستور نمد المشكلة ما لها وح لو قرين بالفيرنا أي نقطة هل أرهنا وحينا صارت هالمسألة أهو لو بابعي وما شامل هذان فرها لو جبتيه أيضا نجرت أنت أسي على سوين دتك كويس يعني دولة نمتك شامل هذان ناي دولة نمت كانوا عصب تاعي أو مدحوني شامل يوجه الرئي أيادات كين طالب من يسوع جارين هذا نعد الله نحرسه مرة ويودنت ومدحوني يوجه الرئي مرك تاريخ لأنه تاريخ دار معه استعمار كنت لقى صائم ماضي وقت دار معه إن بدنا فوضى يوم كجرني وحمشكلين أقول قبت مركا وحي عن سؤال كجرني أيا وحوها شريعة عن كتوسنين محيا لشريعة دتك كتوسين لهانا ديار ما يناهين dadkii inooga tagay xukunkana isticmaar ayuu ahaa kharashkan ayaga bixin jiray meeshun baa laga sii waday markii la soo qaado yaani shariicadiiba ayadoo hirgashay oo lagu dhaqmayba maynan arag waa uu la isiryanay waa uu la isbuursanay mar la fariistay oo isku toostay oo geeska gees nidaamku intuu wada gaaray alxamdulillah dadku mayna arag waxay soo arki jireen bay ahayd waxa la arkay marka caalamka kale markaad fiirisid iyo inaga markaad fiirisid horta dawladdu maxay ku dhaqantaa su'aal la isweydiina haye maxay xukuntaa markaas waxa la midaan mashruuc xukuntaa mise waxay xukuntaa qaanuun wadci ah waxa dadku soo degdegaysa markiiba ma qaanuun wadci xukuman su'aalaha meesha ani baatay marka qofkii xukuma qaanuun wadci ah xukunkiisu muxuu yahay dadku waxa u saalan marka oo fudud aayadaha hadaan akhrinayno oo ay naftooda aan xoog kor istaagayna آية كوباد ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يعني قفك الحكومي ويوحي إلهي سودجي فأولئك هم الكافرون وقالوا آية كلام حيل هذا هاي فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون صدق آية إسدبية على سومعة
hooriskooda markaad fiirisid isku wax kumayna dhammaanin midna waxay ku dhammaatay kaafiruun mid waxay ku dhammaatay dhaalimuun midna waxay ku dhammaatay faasiquun halkaana su'aal ka imaatay